هاتنا waxaan uga gudbaynaa qaybihii su'aalaha ahaa wixii aad soo qorteen waxaan ka gaarnay insha Allah taala inaan ka jawaab naam bismillaahir rahmaanir rahiim jazaakallahu khayran sheekh halkan waxa jira su'aalo dhowr ah dadka ku xiran page-ka masjidka sigiska ay ku soo direen su'aasha koobaad waxay leedahay sheekh maxamed waan ku salaamay waxaan ahay arday waxaan ku noolahay meel hostel ah waa meel boarding ah jiif ah culimaduna waxay noo sheegeen in salaada jumcada aysan ku waajibaynin wax ka yar 40 qof qolana waxay yiraahdeen 13 ruux marka sideen ugu baxnaa khilaafka maxaa igula talin lahayd ma duhur baan tukadaa mise jumca ayaan tukanaa barakallahu fiik bismillaahir rahmaanir rahiim su'aashaasi waxay khulaasadeedu tahay tirada ay jumcadu ku guntanto waa intee waa mas'ala khilaafiye way shaafiiciyada iyo xanaabiladu waxay qabaan 40 ruux oo deegaanka ah ka yar jumca kuma guntanto maalikiyaduna waxay qabaan 12 ruux iyo imaamkay qabaan xanafiyaduna waxay qabaan 3 ruux ayay qabaan 3 ruux ba hadii la helo way tukan karaan muxuu ahaayay imaamkii hadii la helo way tukan karaan jumcada mas'aladaasi khilaafka fuqahada marka laga tago daliil cad oo xadiis nabi ah oo tiro go'an oo aan la dhaafi karin sheegayay ma jiro axaadiista ku soo aroortay 40ka oo shaafiiciyada iyo xanaabiladu cuskadeen kulligeed waa dhaif bishahadati علماء الشافعية محدثين الشافعية لفتوضة أي بحوث دير كقري سيدة سيوطي أو كله نهاية وحو يلي وحديث وكو أصحي 40 كما تشرو وكذلك مالكية اللبية طبنك حديث بخاري كوي علي دليشنيان نبي خطبة أوتاغن صحابة السفرتي مركي أكين واكوي ككلا تغيو يا عي آيادو كسو دكتي محوها هاي طلبية طبن باكسو هردي أيضا لفتي هذا صح حديث كوا سوية لكن لبيه طبعا كير إن الجمعة كو أصحيسو كما عدا إن كو أصحين كما عدا سيداس دراديد مذهب كحوجة بدن مركا أدلة اللفيرية حوجة بدن ومذهب كحنفية يقول كأجدو أو رهيا مربع دي جماعة لهلو جمعة وكو أصحيسا جماعنا وحي كبلا بتصدح يوحي كبدن محققين تا أهل الحديث كإن بدن وكمدنا مذهب كاسي رجحيان وأنا سيدا حوجة بدن واحد لأن فريضة أو إلهي واجبي أو فرائض الدين تكون ومهم كمذا وحن دليل له هينين إن لجو الماشى اللي جساروا لي هذا إن ترى أنت عليك نص عدنا مركا أن له هينين هي ضلفت هذا إشكال كذا له ساس درادي هذا بتصدح قادان هي ترى كبدن مال جمعة جماعات كالله قلت لك علينا أذهلي كرتان تكذا جمعة تكذا إيش خطبة يكذبنا تكذا نعم جزاك الله خيرا سؤاشان kale waxay leedahay gabar baa soo qortay waxay leedahay sheekh waxaan rabaa inaan ka faa'iideysto bisha Ramadaan marka ma isticmaali karaa dawada caadada dib u dhigta si uusan Ramadaanka iga kala go'in ama soonkiisa mas'alada dumarku Ramadaanka markuu soo galay ma isticmaali karaan daawada caadada joojisa ama dhiigga caadada baajisa ama dib dhigta jawaabteedu waxa weeye وصح ويسمين كران هل شرطي bay leedahay daawaday isticmaalayaan inay caafimaad ka dib u geysanay arintaana dhaqaatiirta kulli kala tashanayaan maxaa munaasiba maxaa yeelay wax diidaya lama hayo mid labaad waxay ka sugan tahay Ataa ibn Abi Rabah taabiciga jaliilka ahaa ayay ka sugan tahay bisnaadin sahih in muxuu ahay waqtigaas taabiciinta waa la isticmaali jiray waxa la isticmaaloon baa kala duwanaan jiray way ka sugan tahay Abdullah ibn Umar saxaabigana way ka soo aroortay laakiin wax way waa dhaif saxaabiga kama sugna laakiin taabiciga way ka sugan tahay saas daraadeed waa la isticmaali jiray lamana inkirin culimada maanta joogtana in badan oo kamid waxay leeyihiin mushkilo male hal midun baa laga taxadari gabadhu daawada isticmaalayso ee dhiigga caadada ay ku dib dhigayso inaysan caafimaadkeeda dib u geynin Ramadaanka waxa la mid xajko kale markii xajka galayaan oo kale suusan xajku uga kala go'in way isticmaali karaan si ay acmaasha xajka u dhameystaan sharti inaysan darar iyo dib uusan u geysanin caafimaadkooda wallahu a'lam
jazaaka allahu khayran. Saa'ilkan kale wuxuu leeyahay sheekh waxaan joogaa magaalada Muqdisho. Masaajidda magaalada aad bayna u badan yihiin. Xilliga suxuurta waxaa dhacda aniga oo suxuurta ku guda jira in masaajidda qaar laga aadaamo, qaarna dib u dhigaan aadaanka. Marka ma kan horaan ictimaadaa oon raacaa mise kan dambe? masaladaasi waa masalo runtii dhib badan. wadamada inta badan dowladaha ay ka dhisan yihiin muslimka ah aadaanka xilli go-aan baa loo sameeyaa, laakiin wadamada inta badan aan masaajidda la nadaaminin masaajidu mar buu iska aadaamaa. waana mushkilo runtii jirta halkan inugu haysataa lafteeda. maxaa la samaynayaa xaaladaas oo kale? ruuxa masaajidda midka uu isleeyahay waa ugu waqti ilaalin fiican yahay oo waqtigiibuu ku aadaamaa, muxuu ahaayey salaada ku tukadaa, masaajidka ugu kalsooni badan yaho isleeyahay masaajidkaasaa waqtiga ilaaliya, kaasuu aadaankiisa ictimaadayaa, isagaasuu ku afurayaa, isagaasuuna suxuurta ku joojinaya. haddii aadaankii isaga qasmo oo xilliyo kala gedisan ay masaajiddii aadaamayaan, xalna markaa loo waayo. wallahu aclam. jazaaka allahu khayran. saa'ilkan kale wuxuu leeyahay assalaamu calaykum sheekh maxamed, waan ku salaamay, ilaahay ha ku barakeeyo. waxaa jirta gabar walaashay ah oo qabta cudurka suuxdinta. dhakhtar baana daawo u soo qoray. dhakhtarkiina wuxuu yidhi dawadan yaana laga kala goynin. marka sheekh ramadaanna waa lagu jiraa, marka maxaan samaynaa? haddii gabadhu daawadu u socoto suuxdinta loo siiyey, isla markaana haddii daawada joojiso dhakhaatiirtu ay leeyihiin xanuunkaa qabanaya, daawadeeda ha iska wadato, hana iska afurto, hadhow haddii ilaahay caafiyana ha qallayso. faman kaana minkum mariidan aw calaa safarin faciddatun min ayaamin ukhra. waa shareecadeenna waa shareeco fudud, axkaamteeduna way fududdahay. shaygii asalba fududaa, haddana waxoogaa culaysa hadduu galo way sii fududaynaysaa. marka iska afurto gabadhu, daawadeeda ha qaadato, hadhowna ha qallayso goortii ilaahay caafiyo tabaaraka wa tacaala. allahu aclam. jazaaka allahu khayran. saa'ilkan kale wuxuu leeyahay sheekh, anoo sooman ayaa waxaa la iga baaray cudurka corona oo tuuba ayaa sanka la iga geliyey, kadibna dhiig baa iga yimid. marka soonkayga miyuu jabay mise waan sii wataa? haddii aan caloosha haddayna wax gaadhin oo caloosha wax lagu shubay ama gaadhay uusan jirin, keliyeeta tuubada sanka lagaa geliyey oo dhiiggu sanka kaa yimid, soonka jabin mayso. laanna waxa weeyaan dhiigaga jidhka ka yimaada, hadduu dhiig badan yahay baa muran ku jira oo sida toobinkoo kale uu yahay, ama dhiig badanoo ruuxa jidhkiisa ka baxay ayaa laga murmaa, ma jabinayaa soonka mise ma jabinayo. laakiin meel yaroo ku xagtinoo ku gaadhay, gor yaroo kaa yimid, dhiig yaroo jidhka meel ka mida ka yimid, ilig aad iska saarto dhiig ka yimid, kuwaa yaryarka ah soonka waxba yeeli maayaan. wallahu aclam. saa'ilkan kale wuxuu leeyahay sheekh, waxaan weydiinayaa masaajiddii way xiran yihiin, guryaha ayaan joognaa. haddii aan rabo inaan tukado salaada taraawiixda, ma kaga tukan karaa musxafka ama mobilka applicationka ku jira ee qur-aanka, maadaama aanan xifdisanayn qur-aankii? jawaabtu waa haa. ruux hadduusan qur-aanka xifdisnayn oo uu doonayo inuu qur-aan dheer salaada ku tukado, misxafka wuu ka tukan karaa, ama qur-aanka hadduu mobaylkiisa ku jiro wuu ka tukan karaa. arrinkaasina waxay ka sugan tahay ummulmu'miniina caaisha radia allahu tacaala canhuma, sida uu masaaxifta ku wariyey ibn abi daawuud, uu masaaxifta ku wariyey kitaabulmasaaxif uu ku wariyey, culimo kalena ay wariyeen, waana ka sugan yahay ummulmu'miniina caaisha. sidaas daraaddeed wax dhiba ma laha. haddaadan qur-aanka xifdisnayn misxafka waad ka tukan kartaa, ama taraawiix ama salaad kaleba. wallahu aclam. jazaaka allahu khayran. saa'ilkan kale wuxuu leeyahay waxaan joogaa ceel waaq soomaaliya. sheekh allah ku xifdiyo, su-aal ayaan rabaa inaan ku weydiiyo oo ah, aabbahay waa qof da ah oo aanan soomi karin. waxaan rabaa inaan fidyo aan ka bixiyo, marka ma bisha oo dhan baan maalin walba mid miskiin quudiyaa, mise hal maalin inaan wada quudiyo 30 miskiin baa igaga filan? dadka soomi kari waayey ama xanuunaan rajo lahayn la soomi waayey,
ama da' darteed la soomi waayey fidyada laga bixinayo hal marna waa la wada bixin karaa, bisha dhexdeedana waa la yaryarayn karaa, raashiin bisil waa la bixin karaayoo la bisleeyey masaakiin waa loo qaybin karaa, raashiin caydhiina iyagu karsadaan waa loo qaybin karaa. intaasiba way bannaan tahay, mushkilo ma leh. hadduu ramadaanka in yar u bixiyana wuu heli karaa. haddii uu siduu Anas ibn Malik samayn jiray khaadimkii nebigu sal lla lay slam kama fii saxiix albukhaari, siduu samayn jiray hal mar buu intuu masaakiin isugu yeedho bisha aakhirkeeda ayuu u qaybin jiray, muxuu ahaayey raashiin u qaybin jiray. marka intaasoo dhan way bannaan tahay, kii la sameeyaba dhib ma leh. jazaaka allahu khayran. saa'ilkan kale wuxuu leeyahay sheekhana culimmada qaar waxayna dhaheen ma bannaana marka ruuxu uu sujuudayo wejigiisa iyo gogasha uu ku tukanayo inaanan loo dhaxaynin oo maro aysan wejigiisa saarnayn. haddeertaan waxaa naglu laasimiyey maaska inaan xiranno oo ah afxirkan hadda koronaha laga gaashaanto. marka anoo maaska xiran ma ku tukan karaa? culimmada qaar baa jira sax dhaha ruuxu markuu sujuudayo wejigiisa iyo meeshuu ku sujuudayo waa inaan loo dhaxaynin, laakiin waxaa sugan hadday duruufi timaado in marada aad qabto ama shay aad qabto wejigaaga iyo dhulka inay u dhaxayn karaan. waana xadiidka bukhaari iyo keyrkii ku sugan. saxaabadu ridwaanullaahi calayhim markay meel kulul ku sujuudahayaan maradooda ay qabaan ayay dhulka isaga xijinayeen, calashaani kulaylka ayayna wejiga dhigi karaynin. marka duruuf baa keentay. xataa haddii la yidhaahdo xaaladaha caadiga lama ogola, xaaladan oo kale duruuf baa keentay. haddii marka cabsi ay timaado, xanuun baa faafaya hadday timaado, oo xanuunkii waxaa laga yaabayaa gogasha in laga qaado, dadkii kala qaadaan. haddii laga yaabayo cabsidaasi ay timaado, waa ruqso sidii kulaylkii laga baqaayo kale imaan kartaa. saxaabadu ay maryahooda ay dhulka isaga dhigayeen. marka wax mushkila wax dhiba uma arko in ay muxuu ahay ruuxu uu maskaraatiga bahashan muxuu ahay afka lagu xidho isagoo qaba inuu sujuudo. midda kale meesha laga sujuudo ma aha muxuu afka ma aha, bahashu afkay qarinaysaa. meesha laga sujuudo waa jabhada, waa halkaa wejiga ah iyo sanka, labadaa in dhulka la dhigo waa laga yaaba inay sanka qabato, laakiin wejigaa koreeta ma qabanayso. marka sujuudda laba gooroba wax dhiba ma leh, wallahu aclam. jazaaka allahu khayran. saa'ilkan kale wuxuu leeyahay lacagta aad siiso walaasha ama walaalkaa ma u niyan kartaa zaka xitaa iyadoon la gaarin xilligii zakada? waa laba masalo isa saaran. masalada koobaadi waxa weye zaka aan wakhtigeedii gaadhin ma la soo hormarin karaa. masalada labaadna waxa weye dadka qaraabadaada zakada ma siin kartaa. midda hore jawaabtu waa haa, zakada wakhtigeedii iyadoon la gaadhin waa la sii bixin karaa. xadiid xasana ku sugan oo nabigeenna ka sugan sala allahu calayh waalihi wasalam, waana madhabu طaa'ifa min ahli اlcilmi. sidaas daraaddeed zakada wakhtigeeda in laga hormariyo way bannaan tahay. qaraabadaada zakada ma siin kartaa? jawaabtu waa haa, hadday masaakin yihiin. hadday masaakin yihiin, fuqaro yihiin, ay yihiin maalan daymaysan yihiin, haddii la haysto la fakinayo, waakada hadday sideedii sinfi ama sideedii qaybood ee suuratu tawba ilaahay zakada uu siiyey ugu qaybiyey hadday soo galaan, qaraabanimadu u diidi mayso. bal qaraabanimaday xaq kusii yeelanayaan, oo qaraabinimadu ruuxa ma qadisee waxay siisaa muxuu ahaay iyagayba sad siisaaba. qaraabanimadu waxay siisaa waxay keentaa yani mudnaan khaasay ruuxa siisaa. allahuma waxaa dood badani ku jirtaa labada waalid oo culimada badankood ay qabaan, yani asalkii ku dhalay eed ka soo jeeday iyo faraca adiga kaa farcamay kaa baxay, labadaa lama siin karay culimada badankood qabaan. sababta waxay leeyihiin kuwaasi xuquuq bay kugu leeyihin, xoolahaaga wax ku leeyihin. waalidkaana adiga xoolahaagaba isagaa kule, sida nebigu sal lla alay wasalam. ilmahaaga aada dhashay wixii kaa farcamayna de xuquuq bayba ku leeyihiin xoolahan. adigoo xoolo haysta in iyaguna qatanaadaan maba ahaba. marka waxaa laga baqayaa muxaabaad iyo sidaas daraaddeed labadaa marka laga reebo culimmadu u badan yihiin, inta kale walaalaha muxuu ahay adeerada, ilmadeerada, habaryaraha iyo abtiyaasha, qaraabada kale sakada waa la siin karayaa hadday ama masaakiin yihiin ama fuqara yihiin. sideedii sinfi hadday mid ka mida soo galaan, wallahu aclam. jazaaka allahu khayran. su-aashan kale waxay leedahay sheekh, waxaan ku dhaartay deyn la igu lahaa inaan bixiyo, kadib ninkii deynta igu lahaa ayaa iga cafiyey deyntii,
marka kafaaro gud miyaa la iga rabaa? haddii aad ku dhaaratay deynta lagu leeyay inaad bixiso kadibna ruuxiiba kaa cafiyey waxba laguguma laha, laanna waxa weeye waxaan bixinayaa bimacnaa lahaanshihii baan gudayaa waay. haddii lahaanshihiiba meesha ka baxo oo ruuxiiba cafiyo wax la bixinaya markaa ma jiro, marka wax kugu laasimaya ma jiro. wallahu aclam. jazaaka allahu khayran. sheekh saa-ilkan kale wuxuu leeyahay ramadaan kariim sheekh, aad ayaan kuu salaamayaa. waxaan ku weydiinayaa salaada cisho hortay haddii laga baxo oo taraawiixda la galo, cishihii la igu lahaa ma ku xihan karaa imaamkii taraawiixda tukanayey? tan labaadoo daba socoto waxay leedahay meelaha qaarkood waxaa laga tukadaa 23 rakaco ee taraawiixda, meelaha qaar ama masaajidda qaarna waxaa laga tukadaa 11 rakacadood. marka teebaa sax ah oo waafaqsan sunnada? su-aasha hore jawaabteedu waxa weeye muxuu ahaayey maxay ahayd salaada cishaha taraawiixda haddaan soo gaadho iyadoo lagu jiro salaadii cishahana laygu leeyahy ma ku xidhan karaa? jawaabtu waa haa. gaayatu ma fi lamri waxa weeyaan uun salaad waajiba adoo tukanaya ayaa waxaad ku xidhanaysaa mid sunno tukanaya, wayna bannaan tahay. sida nebiga sal lla alay waslam xadiistiisa ku sugan, mucaad ibnu jabal nebigu la tukan jiray salaada cishaha, kadibna wuxuu tegi jiray xaafadiisa masaajidka ku yaalla dadkii aan weli tukanin, markaasuu tujin jiray isagoo sunnuu markaa tukanayaa, dadkuna waxay tukanayaan salaadoodii cishe ee waajibka ahayd. marka sida saxiixa way bannaan tahay, yani iqtidaa'u muxuu ahay muftarid bimutanafil, mid sunno tukanaya inaad ku daba xidhato dhex male. marka adoo cishihii kuu laaban yahay haddii taraawiixeedoo lagu jira aad timaado waad ku xidhan, kadibna markay muxuu ahay aada dhammaysataa taraawiixda la xidhani macna. masalada labaad oo ah tirada la tukado taraawiixda 11 23 muxuu ahay tiradu waa intee? asalka horta wax weeye salaada habeenkii, taraawiixdu waa salaada habeenkii. salaada habeenkii asal ahaan tiro go-an ma leh, waa ijmaac, waa la isla ogolyahay. salaatu leyli mathna mathna buu nabi sal lla alay slam, salaadu habeenku waa laba laba. markaad waabarka ka baqdo witirka la imow, habeenkii o dhan baad marka laba laba wadi kartaa. masaladaana ijmaac bay kusoo guurinayaan a'imo fara badan. salafka markaad fiirisana waxaa muuqata in ay qolo walba siday qaateen aynan isku inkiri jirin. yani waxa way maalan shaaficiyada iyo xanaabilada iyo 23 bay qaateen, 20 salaadii iyo 3 witir ah. qolyo 39 bay qaateen, qaar way ka badiyeen. marka cinda salaf mas'alo la isku inkiro ma ahayna mas'alo wajhada nadarku isku khilaafsan yihiin, qoloba si u qaateen bay ahayd, dhibna ma laha haddii aad tukato inta, haddaad yarayso, haddaad badiso. laakiin markii xadiidka bukhaariga ku yimid, caaisha markii nabiga weydiiyey sal lla lay wasalam, markii la weydiiyey salaadiisu sidee bay ahayd habeenkii, waxay tihi ramadaan iyo keyrkii toona muusan ka siyaadin jirin 11 ragcadood. laakiin waxay ku dartay 11 ragcadood wuxuu tukan jiray 4 ragcadood. laa tas'al can xusnihinna wa tuulihinna, wuu dheereyn jira, wuu qurxin jiray nebigu sal lla lay wasalam. markaasuu haddana 4 kale tukan jiro, dheereyn jiro, qurxin jiray, markaasuu 3 tukan jiray nebigu sal lla lay wasalam. marka haddaad qiraa'ada dheeraynayso oo qiraa'o dheer ku tukanayso 11 tuko, 13 riwaayad baa ku soo aroortay. haddaad qiraa'ada gaagaabinaysana inaad tirada badiso, yani wax weeye 23 iyo ka badan iyo ka dhigto mushkilo ma laha. marka kulli dalika fi lamri saca insha allahu tacala, wallahu aclam. intaas ayaynu insha allahu tacala ku ekaynaynaa su-aalihii idinka soo arooray eed soo qorteen. ilaa iyo kulan dambe intaa iyo wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.